sida caadadu ahayd waxaan u soo shaqataga ayaan ahay anigoo shaqadeeda ku socdo goobta shaqadeeda ayaa waxa lagu istaajiyay jirka dahsoon oo markaas askartii joogtay ee istaajisay ee dhaheen indhashareerka qaad dadana markii aan indhashareerka iska qaaday ayay waxay yiraahdeen ninkii askariga wuxuu yiri soo deg adig markaan soo degay ayay wuxuu yiri waa laga shakiyay intii istaag meeshii aan istaagay markii wuxuu wacay taliyihiisii oo wuxuu yiri taliye waxaan ka rabaa in waxa joogto waxa meeshan ku haynaa nin xijaab iyo indhashareer soo xirtay marka kadib taliyihii wuxuu yiri bajaaj soo saar ninna soo raacay oo askari ah saas marka hal uu keeno saldhiga sidii marka saldhiga lagu keenay aniga iyo askarigii iyo waxaan ku tagnay markaas saldhiga marka tagnay akhbaarteedii wada sugaayeen oo iga soo horeeyay akhbaarteedii markii aan tagnay taliyihii iyo dadka ciidanka oo dhan wada taaganaya booliskii aan tagay marka tagay taliyihii hadal igu bilaabay marka wuxuu yiri assalaamu calaykum magaca waxaan eray waxa Faiza leedahay markaas wuxuu yiri tan diyaas barawaaye nin diyaas barawaaye waa wacdahay gabar markaas aan oo meesha taagneed oo boolis ah oo laakiin ka muuqanin dharkii uniformkii boolisnimada ka muuqanin oo iska moodis ciyaal xaafad ayaa meesha taagneed markaas waxa la yiri soo bar gabadhii horta meeshii ayay hanjabaad igu bilaawday iyadoo markaas ii haysata nin ina ahay hanjabaad iyo aflagaade igu bilaawday waas raacnay waxay geysay qolkaas oo qolkii oo inay igu baartay ahayd qolka laakiin waxa jiifeen shantaas dumar ee ahaayeen dumar oo muxuu ahaay shaqo markaas aan isdhahay way ka soo degeen ee meesha jiifeen dumarkii ka isay waxay tiri ka baxa banaanka u baxa gabadhana qofkana baara oo nin looga shakiyay ee gabdhihii ugu sheekaysay marka gabdhihii waxay yiraahdeen ayagoo hurdahayso ma baxeeno gabadha qofkan nin waa u jeednaa meesha isku baar anaga hurdaan heesay madaa soo markii jiifka ku noqdeen gabadhii waxay tiri dharka siib waxaan ku yiri dharka siibi maayo shaqadaadu waxay tahay in ay baartid hadaa baaritaankaas wax ku fahmi weyso waa in ay gudbisaa marka taliyaha markaasi baaritaan ka baxsan oo intaas ka tayar badan inuu keensado markaas isaga gabadhii timihii iyo wixii inta taabanaysay waxay tiri qofkan timeen leedahay timada dheer leedahay marka midaa meesha jiiftaa soo booday waxay tiri nin hadda ka hor la qabtay oo xijaabi wax u xirnaay timuu lahaa timada dheer u lahaa ee timaha fiirini gabadhii markii way sii taabatay zaa'id ay taabatay markaas muxuu ahaa mid kale soo booday waxay tiri tan way tababaran tahay waxa way kuwii ciidan oo muxuu ahaa qolooyinkan xaq jirka oo hal sano oo ciidannimo soo martay kadib marka gabadhii qalqalaa galay oo ay baaraysay gabadhii marka intaana qalqalgelinayay shanta meesha jiftay soo marka gabadhii markay baaraysay waxay qaadanaysay go'aan inay taliyihii ku celiso isla markii inay dhahdo qofkan waa gabar gabadhii marka waxay tiri hadaa sii daysid gabadhaan hadhow haddii wax noqoto adigaa shaqada lagaa casilaya adigaa muxuu ahaa wax noqonaya marka gabadhii waxay rabtaa inay ku adkaysato inay si fiican sii baarto mid kale soo boodo waxay tiri ninkan wuxuu marsan yahay nin cilaan marsana hadda soo baxay kadib intii markay qaadatay ayaa waxay isku dayday marka gabadhii baaris inay wareysato dan waxaa ku dhacday baaritaan kaliya lagu amray ma lihid inaad muxuu ahay aad samaysid markaas wareysi iga qaadi wareysi haddii la qaadayna waa inaa OB-ga dhiigayaa dan taliyihii ku soo noqotay waxay tiri gabadhan way